Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan asxaabta qiimaha badan. Maanta iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku qaadanaynaa lesson 20 casharkeena labaatanaad. Waxaynu ku qaadanaynaa sida loo xisaabiyo mushaaraadka shaqaalaha ama wax loo yaqaano payroll accounting. Payroll accounting waa mushaaraadka caadiga ah oo kambanigu uu bixiyo ama billaha lagula heshiiyo kuma hadlayno. Waxaan ka hadlaynaa mushaaraadka ku saabsan saacadaha sida jaamacadaha nidaamka isticmaalaan ama wadamada qaarkood nidaam ay isticmaalaan oo ah qofka in dee saacado u shaqeeyo saacadaha u shaqaystay in mushaar loogu dhufto ama loo xisaabiyo. Okay, halkan waxaa inoo qoran magaca shaqaalaha, sidoo kale time in waqtiga ay shaqada soo galaan iyo time out waqtiga shaqada ay ka baxaan. Halkan marka waxaan ka rabnaa inaan kusoo saarno inta saacadeed oo qofkan uu shaqeeyey, 2 saac iyo bar, 3 saac, 4 saacadood uu shaqeeyey qofkan. Okay, rate-ka saacadiiba lacag intee la eg ayuu qofkan uu ku shaqeeyaa. Halkan waxaa loo yaqaanaa gross pay oo ah qofkan shaqada marka uu ka baxayo inta xaq u leeyahay ama inta lacag ee uu shaqaystay. Okay, halkan aan imaanaynaa si work hours waxaan kusoo saari karnaa inaan dhahno equal open bracket. Okay, time out waqtiga qofka shaqada uu ka baxayo ayaa waxaan ka jaraynaa time in waqtiga shaqada uu soo galay, kadibna qoyska ayaan ku xiraynaa. Waxaan leenahay lagu dhuftay oo ah shift iyo 8 maxaan ku dhufanaynaa 24 saacadood maadaama waa maalinkuu ka kooban yahay 24 lagu dhuftay 24 ayaan leenahay, kadibna inter ayaan leenahay. Okay, meeshan marka waxaa inoo soo muuqatay saacada inoo soo muuqatay. Anaga saacad ma rabno, waxaan rabnaa number caadi aan rabnaa, tusaale 2 3 saac 4 5 6 aan rabnaa. Meeshan numberka ah qaybtan timeka halkan aan bedelayna, waxaan ku bedelaynaa general ayaan ku bedelaynaa. General markaan ku bedelno qofkani 4 saacadood iyo 4.5 ama 4.5 ayuu shaqeeyey ama 4 saacadood iyo bar wax u dhigmo. Okay, qaabkan ayaa loo soo saaraa work hours-ka. Okay, rate-ka qofkan uu qaadanayo kambanigan saacadii lacag ahaan muxuu bixiyaa. Okay, tusaale kambanigan saacadii wuxuu bixiyaa $12 ayuu bixiyaa. Okay, 12 ayuu bixiyaa, waana guud ahaan waa laga sameeyaa. Okay, halkan waxaan leenahay kambanigan wuxuu bixiyaa lacag waa $12 gaaraysa ayuu bixiyaa. Okay, gross pay-ga marka maxaa lagu helaa. Okay, waxaan leenahay equal work hours-ka. Okay, waxaan leenahay equal work hours-ka oo lagu dhuftay, waxaan ku dhufanaynaa hours rate-ka. Qofkan inta saacadood uu shaqeeyo waxaan ku dhufanaynaa saacadiiba inta mishaar uu qaato ayaan ku dhufanaynaa, kadibna inter ayaan leenahay. Okay, qofka ugu horeeyo kale 4 saacadood iyo bar ayaa uu shaqeeyey, saacadii wuxuu ku shaqeeyaa $12. qofkaasi marka uu shaqada uu ka baxayo wuxuu xaq u leeyahay lacag gaarayso $54. Okay, kadibna double tap ayaan leenahay. Qaabkan ayaa loo soo saaraa waxa loo yaqaano gross pay ama loo xisaabiyaa payroll accounting. Okay, waxaan rabnaa markaa shaqaalahan gaaraya 10kan shaqaale maalinkii imise qarash ayaa ku baxda markii shaqada ay kasii carraawayaan ama shaqada markii ay kasii baxayaan. Okay, totalka waxaan kusoo saaraynaa alta equal ayaan leenahay, kadibna inter. Okay, shaqaalahan waxay qaataan ama guud ahaan maalinkii ku baxa lacag gaaraysa $774. $774 lacag dhan ayaa ku baxda. Casharkeena labaatanaad halka ayuu nooga egyahay. Sida iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkeena subscribe inoo saar, like nagu dhiirigeli, wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faalooyinka.